kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kaydka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo dejiyay qorshihii ugu dambeeyay ee xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Roble xilli ay ku garab taagan yihiin xubno badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble golaha wadatashiga qaran oo beesha caalamkii midowga musharaxiinta mucaaradka kala hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka iyo dardargelintooda ciidanka xoogga dalka iyo AMISOM oo kulan gaar ah ka yeeshay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka gobolka Hiiraan oo si adag kaga hadlay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne eedeen culusna u jeediyay ciidamada uu hogaaminayay General Xuud intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa 3 bisha koowaad sanadka 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo soo booqatay channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay madaxweyne Farmaajo ayaa dejiyay qorshihii ugu dambeeyay ee xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Roble xilli ay sii xumaatay xiisadda u dhaxaysa ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo isla markaana ay gaartay meeshii ugu sarreysay ayaa waxaa bilowday qorshayaal kala duwan oo xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Roble sida ay noo xaqiijiyeen ila xogogaal ah oo aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo waxaa jira qorshayaal kala duwan oo madaxtooyada Soomaaliya ka socda maalmihii aanu ka soo gudubna kuwaas oo ah dhamaantood kuwa looga arrinsanaya sida xilka looga qaadi lahaa ra'iisul wasaare Roble kiisas dhowr ah ayaa la sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu ku lug yeeshay isla markaana ay yihiin qaarkood kuwa halis ah kuwaas oo ah kuwa ugu horeeya ee meesha ka saari kara ra'iisul wasaare Roble waxaa jira shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Roble isla markaana xilligan u wareegay dhanka madaxweyne Farmaajo kuwaas oo ka qayb qaadanaya dadaalada xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Roble sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa haysta xildhibaano ka tirsan baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya kuwaas oo xilligan u diyaarsan sidii ay xilka kaga qaadi lahaayeen ra'iisul wasaare Roble isla markaana mar kale muddo loogu kordhin lahaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya kaas oo xilligan ah ninka dagaalka adag kula jira ra'iisul wasaare Roble waxaa la tilmaamay in isku daygan uu wada madaxweyne Farmaajo uu yahay kii ugu adkaa ee abad uu sameeyay isla markaana ka dhan ra'iisul wasaare Roble waxaana dad badan durba ay aamineen in ra'iisul wasaare Roble si sahlan uu meesha kaga bixi doono maadaama kiisas dhowr lugaha ay la galeen ra'iisul wasaaraha kuwaas oo dhamaantood markii hore ahaa kuwa qarsoona madaxtooyada Soomaaliya oo xilligan laga wada abaabulkii ugu dambeeyay ee ka dhanka ra'iisul wasaare Roble ayaa ilaah aanu helna waxay xaqiijiyeen inay ku dhow yihiin in gabi ahaanba ay tuuraan ra'iisul wasaare Roble isla markaana la diyaariyay shakhsigii loo magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo garab weyn muddooyinkii ugu dambeeyay ka haystay mucaaradka ayaa la sheegay in xilligan isagana uu wada dadaalo dhowr kuwaas uu doonayay in uusan meesha ka bixin waxaana jira shakhsiyaad badan oo ballan qaaday in iyagu ay ku garab siin doonaan sidii uu ku joogi lahaa xafiiska ra'iisul wasaarenimo ee dalka wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayna madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in albaabada madaxweyne Farmaajo uu ka soo xirtay wada hadallo la doonayay in laga dhex bilaabo isaga iyo ra'iisul wasaare Roble waxaana Farmaajo markaan uu ku adkeysanaya sidii uu meesha kaga saar lahaa ra'iisul wasaare Roble isagoo doorbidaya in wada hadal dambe aan la isugu soo laaban golaha wadatashiga qaran ayaa beesha caalamkii midowga musharaxiinta waxa ay kala hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyoone kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow oo shirka faahfaahinaya ayaa waxa uu sheegay in diiradda lagu saaray amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangooynta xilliga soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in gudiyada ka socda golaha wadatashiga qaran qaran ay la kulmi doonaan wakiilada beesha caalamka xubnaha matalaya midowga musharaxiinta mucaaradka ururada rayidka bulshada si ay kaga dhageystaan talooyinka loo soo jeedinayo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ugu dambeyntii afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda iyo golaha wadatashiga qaran ay ka go'an tahay in lagu guuleysto doorashada dalka sidoo kale tan lagu xalliyo wixii jira oo tabasha oo ay qabaan miiska wada hadallada shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada Muqdisho isla markaana ay ka wada qayb galeen ra'iisul wasaare Roble madaxda shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha shirkaas ayaana muhiimadiisu waxay ahayd in looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo dardargelintooda sidoo kale tan waxaa lagu saxayay qaradaadkii ka dhacay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka qaar ee dawlad goboleedyada dalka sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo cabasho xoog leh ay ka soo yeertay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaana kulankaas hore u dalbaday isla markaana ra'iisul wasaare Roble ka codsaday in la joojiyo doorashada sidoo kalena la xaliyo tabashada ay qabaan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo shakhsiyaad hore u sheegay in kuraastoodii lagu boobay deegaanada qaar ee dawlad goboleedyada ayaa
xilligan rajo waxay ka qabaan in ra'iisul wasaare Roble uu soo celiyo kuraasta qaar oo la sheegay in la boobay markii hore. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan waxay tahay mid meelaha qaar ee dowlad goboleedyada dalka ka bilaabatay, halka meelaha qaarna la rajeynayay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo la soo kulantay dibdhacyo kala duwan intii lagu guda jiray iska qabsigii u dhexeeyay mucaaradka iyo madaxweyne Farmaajo. Ciidanka xoogga dalka iyo AMISOM ayaa shir ka yeeshay la dagaalanka Al-Shabaab. Saraakiil ka kala tirsan ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor iyo kuwa ka socda ciidanka dalka Uganda oo ka mid ah AMISOM ayaa kulan ku yeeshay deegaanka Lambar Konton ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo ay kaga wada hadlayeen arrimaha amniga ee gobolka. Sidoo kale kulankan oo ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka Marka ayaa waxaa lagu falanqeeyay xaaladda amni ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka. Gudoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa waxa uu sheegay in dhinacyadan ay sidoo kale ka wada hadleen sidii guud ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose amnigiisa ay si wadajir uga qayb qaadan lahaayeen ciidanka guutada Gorgor iyo kuwa AMISOM. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, balse ay ka dhacaan weeraro qorsheysan oo lagu soo qaado saldhigyada ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira in qaraxyo la bartilmaameedsado ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya xilliyada ay ku socdaalayaan wadooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxyadaas ayaana qaarkood waxaa waxyeello xooggan ay ka soo gaartaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxay ku celceliyeen in gebi ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose laga saari doono Al-Shabaab isla markaana deegaanada ay kaga sugan yihiin ay gaari doonaan ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM. Howlgallada ugu badan oo ay sameeyaan ciidanka sida gaarka u tababaran kumaandooska Gorgor ayaa waxaa laga sameeyaa degmooyin iyo deegaano badan oo dhaca gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana inta badan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ay soo bandhigaan saldhigyo iyo xarumo ay leeyihiin Al-Shabaab oo halkaas ciidanku ay ku burburiyaan. Meelaha qaar ciidamada dib ayay kaga soo laabtaan halka meelaha kalena ay ku sugan yihiin. Howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidanka Gorgor ay qaadeen ayaa waxaa laga sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo in badan ay weeraro isxigay ku soo qaadeen Al-Shabaab. Weeraradaas ayaana waxay ahaayeen kuwa ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gorgor ay ka gaashaanteen isla markaana ay tilmaameen inay ka hortageen. Ugu dambeynna maamulka Hirshabeelle ayaa si adag kaga hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo eedeyn culus dusha u saaray Generaal Xuud. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad Generaal Axmed Maxamed Cali Suutareedisho ayaa sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku jira howlgalkooda caadiga ah ay weerar jidgal ah oo lagu sameeyay si la mid ah weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. Taliyaha oo warbaahinta kula hadlayay Beledweyne ayaa sheegay in ciidamada laga been abuurtay oo lagu sheegay in iyaga ay weerar ku qaadeen, wuxuuna tilmaamay in arrintaas ay tahay mid been abuur ah. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in wixii dhaqan iyo xallin ah looga baahan yahay odayaasha dhaqanka, sidoo kalena ciidamadu ay yihiin kuwa ka madax bannaan siyaasadda. Cid kasta oo ku soo duushana ay iska caabinayaan isaga oo cadeeyay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay Beledweyne. hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad Generaal Axmed Maxamed Cali Suutareedisho ayaa waxa uu imaanayaa xilli deegaan duleedka ka ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya iyo ciidamo uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka goostay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay martigelinaysay rabshado iyo dagaallo u dhexeeya ciidanka dowladda Soomaaliya oo ka soo horjeeda Generaal Xuud iyo maleeshiyaadka amar qaatay generaalka. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay tahay magaalo ka mid ah kuwa loo asteeyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan midda uu qaban qaabinaya maamulka Hirshabeelle. waxayse u muuqataa in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan aysan ka dhici karin doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaybtii loogu talagalay gobolka Hiiraan in lagu qabto. maleeshiyaadku uu hogaaminayo Generaal Xuud ayaa waxay yihiin kuwa si adag u diidan qorshaha uu wada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, waxaana jirta in dhowr jeer Cali Guudlaawe loo diiday inuu caga dhigto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxay ku howlan yihiin dadaalla ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac isla markaana ay ku doonayaan in xabad dambe aysan ka dhicin magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda, waxaana siyaabo kala duwan ay ula kulmeen Generaal Xuud iyo sidoo kaleeto maamulka gobolka Hiiraan uu hogaaminayo Cali Jayte. guud ahaanna waxaa intaasi ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen kaydka wararka. haddii ay tahay markii kuugu horreysay ood soo booqatid janalkeenna haylaawina sabskaraab tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. siina laagaree muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan oo jecel horumarka dalka iyo dowladnimada.